قال كعيا إن لقى قبتان وين ياكو قبت qabashadeedii gaalka iyo horeyna waan uga hadlay waxa ay qabtay nabad sugidda ciidamada Soomaaliya hay'adda nabad sugidda NISA yaa ay qabatay hotelka aan joogay marka lagu qabtay ma amar ka yimid madaxa sare ee NISA ahaa mise amar wuxuu ahaa markaas taliyayaasha meesha joogay iyo ciidanka meesha joogay ee amniga ku sugayeen ay ku qabteen waxay ii muuqatay markii aan qiimeeyay sida hawlgalku u abaabulay hawlgalkan inuu ahaa waajib ciidankan la soo siiyay aniga soo xaqiiqan xamar airportka markii hore sii marahayay waa lagu joojiyay markii hore daqiiqada dheeraada markii hore magaalada sii galaysay aan airportka xamar sii galay international aadalcad airport markaan sii galayay daqiiqada intii hore ka badan dadka markaad gaalkacyo si dhoofayay gaalkacyo si dhoofay waa la sii joojiyay shaki wuu igu jiray sababta la ii celinay marka su'aalaha kaamirooyin badan bay u dhacayay shaqa culus baan u socday waan ka baaqan lahaa shaqadaan u socday aad runtii muhiim u ahayd shaqa halgan bay ahayd oo u socday oo ka baaqan karin laakiin dareenkaas wuu igu jiray daqiiqadaha dheeraadka ee meesha lagu hakiyay kaamirooyin badan oo aniga keligii baa la hakiyay wax ka badan wax 5 daqiiqo ka badan la 7 daqiiqada yaa laga hakiyay mobilada laga haysta xataa oo mobilada saxanka ay ku soo wareegayeen yaa laga hakiyo dhaxda lagu hayay ma ahan aniga in la halkan taagno mobiladayda la hakiyay mobilo badan waan watay mobiladii waa la hakiyay aniga meesha istaag baalay daqiiqada dheeraad ahaan taagna sidaa waan ku baxay joogtay oo dabcan ma hadda joogto marka cusbad ay joogtay rijo arinta ka yar fiican ku muuqatay oo ma xilliga ima muuqanin waxaan aqaanaa inay dawlad goboleedyada cid laga qabtay ay ku wareegi jirtay si degdeg ah gacanta Itoobiya marka maba aaminsaneen ba in lagu siimo xamar dawladda Soomaaliya laakiin nasiibanaag markii aan arkay xilligii dambe diyaaradii la igu soo qaaday xilli aroora la soo qaaday bayga bidixda cadceed ugu haysay marka jahada aan ku soconaa marol yaa fahamsana marka arkay jahada aan u soconaa inay tahay jaha Muqdisho wuu iga bacay wixii maartay walwalkii oo dhan wuu iga bacay mar hadii aan dawlad goboleedka Itoobiya ay iska maamulinaysa dawlad goboleedyada yararka aan gacantooda ka baxay oo jamhuuriyadda Soomaaliya loo dhanna iyo caasimadda ummadda hadda aan u socdo madaxweynaha Shaale la doortay oo qayb ka ahaa dadkii doortay campaign garantiis runtii waqti badan baan geliyay hanti badan baan geliyay macnaha in asagu soo baxo waqti aad u badan baan geliyay isaga ma ismaan naqaan aniga ismaan aan hor fadhisan laakiin aad baan ugu campaign gareeyay baarlamaan badan baan la kulmay saaxiibo badan baan sameeyay juhdi badan baan geliyay xataa xilliyada qaarkood meelo aad cabsidu ugu badan tahay oo aan ogahay oo ku arkay sirdoonka iyo madaxda Itoobiya yaan galay xilliyada qaarkood si aad macnaha isaga si aan ugu campaign gareeyo dad badan markaa aan isbaranay oo baarlamaanka qaarkood way ii digeen waxa la yidhi hawshan adiga khatar bay kugu tahay marka dib uga bax meesha mar dambe soo gelin rag baa xanaantay iyo gabadhaba oo dadkii baarlamaanka ah marka waxaan anigu u dooranahay hadaladiisina waan dhageystay xilli hore oo shaqo 6 bilood ma aqaan xasaas soo qabtayna way fiicnaa aniga waxaan daneynayay Soomaalinimada ummadda Soomaaliyeed inay hesho hogaamiye daacada hogaamiye dalka waa la haystaa xoreyn kara hogaamiye dadku burburay dhisi kara hogaamiye dalkan baa isu keenay Soomaalinimadu ka go'anta qofka aan aaminsanahay inuu arintaas awood leeyahay xilliga farmaajo markaas waxaan qaatay naftayda aan ku waayo waqtigeyga inaan geliyo sidoo isagu ku iman culimaan fadhiisay quraan baan bilaabay fiiri markaan quraanka dhameeyay 3 jeer baan quraanka u dhameeyay isaga dartii oo mar ku qaatin neef aray intaan soo iibiyay aan ku qaantimay quraanka markii u dambeysay fiiri يعني ما أنا aniga qaraabo ma aan ahayn tol kala ma aan ahayn Soomaali baha asaga iyo saaxiibada la tartamayaan dad fiican Soomaaliya wada ahay laakiin waxaan anigu raadinayaa qof leh awood iyo karti iyo capacity ummadda Soomaaliyeed
dib ugu dhisi karo waxaa aniga waxaana qofka nabadoona waqtigeena kusoo qaatay qof marka dadka iyo dalka dib u xoreeya yaan raadinay intaas aniga iga go'ay marka waxaan is lahaa kan shaqadii loo baahnaa kii qaban lahaa waa kan marka arkay inaan xaqiisii u sii socdo waa nafisay anoo ka tiinadaysan baa diyaaradda la soo saaray marka anoo ka tiinaysan intii layga dejiyo sawirada ay qabtaa sawirkaygu inuu u gudbo oo aad u cadhooda xataa waxba ka baqan waa lagu geeyey wixii dhici lahaa way dhaceen dhibaatooyinkaad soo mari lahayd waad soo martay falilah alxamdu waad soo baxday marka aad soo baxday eed Nairobi timid iyo intii kale aad meelo kale ama dhulka Soomaalida aad socod ku soo maraysay dawladdii Soomaaliya ee jariimada ka gashay maxaa dambo idin dhaxmaray horta qoladaas xabsiga inaan ka soo baxa ayaga waxay u arkeen inay burburkooda way waxay isku dayeen iyadoo maxaabiisihii Ethiopia isbedel ka dhacay lagu sii daayay aniga in xabsiga la igu sahay way gacanta Tigrayga inaan ku jiro wareejiyaan Tigraygu laba xaalan mid ay yeelaan inay khaarajiyaan iyo inay hayaan heshiis intaas ku galeen ha way muuqatay arintaasi markii la arkay in maxaabiisi la sii deynay kooxda gacanta igu haysay xabsiga hore ku jira way iga saareen way xabsi kale iyo meel kale ay dhaadhiciyeen markii dambe dawladda intaan saarnay ra'iisul wasaare saarnay burhaan oo xeerlaaliye saarnay dawladdii aan si fiican isu fahanay xaaladaydii ay soo baxday waxaan saarnay ninkii taliyihii gacanta igu hayay oo qayb kamid ah adigu rag badan bay ahaayeen rag gacanta igu hayay dhowr nin bay ahaayeen laakiin runtii nin si fiican ila dhaqmi jiray aad iyo aad ila dhaqmi jiray ana waan u duceeyay maxaa yeelay ninaan dagaalamayna dhowr iyo 20 sano oo dadkoodii iyo xulkii iyo saraakiishooda annaga qabnay sawiro dadka nibo qabay aad iyo aad marka Tigrayba oo Tigrayba waxa la yiraahdaa Gabar Salaase marka ninkaas Gabar Salaase nin si fiican ila dhaqmay markii dambe aan ka soo dawladda Itoobiya intaan saragnay aan ka soo laabteen saragnay ayadoo madax kale ila socoto yaan isugu meel hotel oo ra'iisul wasaarihi aan ka imid la soo dhisayo suuda aan xidhnayo tay aan qabo adiyaabaysan waan salaanay markaasaan waxaan ku yiri hadda soo nin weyn miyay baan ku yiri markaasuu nin weyn baa tahay aad wii salaamay nin weyn baa tahay ina fariisi waa fariisanay waxaan ka codsanayaa saaxiibkay baa tahay waa isku soo xaqiiranay wixii dambi ahaa ka galay oo dhan inaad iga cafido yaan ka codsanayaa waxaan ogaataa inaan ku hiiliyay waxaan kaaga hiiliyay dawladda Soomaaliya waa kaaga hiiliyay dawladda Soomaaliya waxayna yiraahdeen ninka 6 bilood ugu yaraan dib u haya haddaydan dilaynin markii hadda aan gacantanada ka baxday way ila soo xiriireen way aflagaadeen bisu xum bay noocaayeen waan isku dhacanay nin la yiraahdo wiil kullane ku karo la fadhiyay weydiinaya kii muxuu ahaa leeyahay jooga qolada nisa marxaanka muxuu yahay beelay saas oo dhan ha saas ay leeyihiin waa fadhiisa uu leeyahay ninkan iyaga marka is weydiinaya magacii muxuu ahaa magacii uu sheegay waan way caayebi markii dambe waxaan idhi yima soo gali kartid Fahad Yaasiin 3 jeer buu yimid markay ugu yarayd 45 daqiiqan wada fadhinay arrintaadana ka wada hadlaynay marka u yarayd baana 45 daqiiqo wada hadlaynay arrintaada Soomaaliya raali kama ahayn inaad meeshan ka baxdo waan kaaga hiilinay inaan ku wareejinana taas ahay adu markii dambe wuxuu sheegay in xataa in la khaarajiyo inay gaadhay marka nimankaas inaad la dagaalantood burburisay ka cabsanayaan dad ayaga hadda la dagaalantood burburisan iyaga dib waa gaadhaya laakiin aduguna wax badan ka faa'iidi meeshay ani hadda saaxiibkood meehi laakiin waxda ma tahay nin Soomaalida ku dhago wala isbaranay hadana baaragtay kulay dar xogtaas uu siiyay marka waad soo baxdayba Ilaahay baa ku soo badbaadiyay wixii dhan waa laga yimid maxay dhex maray Soomaaliya halkan markaan mid waxaan ugu yimid dad badan oo diyaarsan oo dawladda soo dirtay baarlamaanka aad meeshan u yimid
madaxdii dowladdan rag badan baa ka yimid waay Fahad Yaasiin wuu yimid yar shaqo u joogay isaguna wasiirka cadaaladda Cabdixakiin Sheekh Xasan oo laakiin aan shaqadaas markaa u soconay shaqo kale u sii joogay meesha wuu joogay wasiirka duulimaadka Omar wuu joogay oo isagana dhinacay ka diraayeen Fahad farmaajo soo diray Omarna ra'iisul wasaare waxa soo diray Xasan Khayr yaa soo diray koox kale oo baarlamaanka ku dhex jirto iyaguna baarlamaanka oo saaxiibo gaar ah iyaga la siyaha iyagana waa la soo diray waxa soo dhan oo aad moodaa in la yiri hadduu qaar gaf qaar ha helo oo meelo badan la kala dejiyo intiiba yaa dadaal badan sameeyay qaarkood waan saragnay dhowr jeer baan saragnay tiimamka intoodii badna waxay mar walba igu lahaayeen oo iska raacsanaayeen oo loo soo dhiibay fariinta ay wadeen waxay ahayd raali gelin iyo inaan xamar tagno ku kaxayaan inay xamar geeyaan magdhow la isiiyo raali gelin la isiiyo intaas lagu xaalo yaa intaas ka sinaayeen qaar waxay leeyihiin dawladda waxaan go'aaminay in magtaadii inaan bixino waa isku qabanay qiimaha 10 milyan 5 milyan waxbaan niri aduu marka xagga saraan u badan qaar waxa uu sheegay waqti dilaala badan oo kalena way sameeyeen oo Kenyaatiga dhaxdooda qabqablayaal badan oo kala la diyaariyay ma yara meesh warga waxaan ku yiri ma waxa yeeshaan Fahad Yaasiin kamid ma ragaad kulanteen maxaad baan soo galnay intaan meeshaas oo dhan aadin sababtu maxay ahayd iigu dhiibtay cadawga meesha ku shaqaysanaysan intaad noqoto xamar tagto sababta soo sheegan ku waxa idin ku kalif isagu marka wax sabab ku sheegay ma jirta ma uu hadlay wixii dhacay way dhacaan waa qariibanay sheeko badan buu sameeyay waxaan ku yiri ma taa hadda diyaar u inaan xamar tagay aniga keligay dambigu ma aniga waad qabateen عدو بدي ديبتين حدو تلمانتين إن أنا هاي أرجع حسوا ومد صوماليين إن أنا كأبى بقوله هاي خطر يدباط أنا وقت يجي ومد صوماليين في عدن سوقري حبسي أنا قول دعوة عن إمت وفرنت إثيوبيا كإمت يا الصوماليين أنا وقرت الطوبان وإثيوبيا أدي ديبتين يا الصوماليين سبت الرأي intiina umadan waxa idin ka galay ma jiro dhiig idin kama gelin dhaqaale idin kama gelin waxa idin ka yeeshaan mooyaan waqti idin kama gelin umad Soomaaliyeed waqtiga iyo dhan baa u soo burburay markaas waxa dhacday khatar buu ku hargagaxiso qadiyadii umad Soomaaliyeed iyo halgankiina waxaad ku tilmaanteen inuu halgan argagixisa aad ku tilmaanteen 20 milyan oo halganka ku jirtay yaa waxaad saxiixdeen oo ku dhawaaqdeen in dilkoodu mar walba banaay maxaa yeelay waxaas waa argagixiso macnaheedu waxa weeye meel walba waa lagu dili karaa ummadda inta leekeed halka soo jirtay yaa waxaad saxiixdeen bar kasto lagu arko in lagu dilo marka uu ka weeyahay dhibaatada aniga way ka weyntahay intaad noqotaan raali gelin public bixiyo waxa dhahdaan hawsha hadalkanaga noocaas ah wuxuu ahaa hadal khalad nooga dhacay cudurdaar baan ka bixinaynaa ummadii Soomaaliyeed iyo ururkii ONLF iyo ninkaas hayqana wixii aan ku tilmaanay raali ha ka noqdeen sidaa ma aha inta kaliya dhax ku dayeen Djibouti oo kala markii aan tagnay shirki Djibouti waxaan saragnay ra'iisul wasaare xogeenka Mahdi nin saaxiibkay oo fiican weey ninkii la jiray xoosh Ilaahu naxariisto ninkii dhintay baadiyow madax badan oo ka socota dawladda waan saragnay waxay ugu yiraahdeen maalin aan shirka ka hadlay habeenkeedii way malaha wada hadleen madaxweynaha iyo ayaga marka subaxdii bay waxay yiraahdeen madaxweynaha xalay waan wada hadlay wuxuuna codsaday inaad xamar timaado martiqaad rasmi ku soo diray madaxweynaha wuxuu codsanaya arinta waxaan ka codsanaynaa inaan raacdo oo xamar aan wada tagno su'aal baan weydiiyay waxaan ku yiri qof argagixisa caalami ah ma martiqaad kartaan intaad invitation u dirtaan martiqaad u samaysaan oo baax idinka u dirtaan ma ku martiqaad kartaan caasimadda Soomaaliya
في الصومال ها واي وكم مرتقاذ كرتا واي ومؤجشين ايربورت كي انترناشونال ايربورت aadan cadde inuu ka soo dego ma ogashi واي xoos jibriil baa wuxuu yiri madaxweyne ra'iisul wasaaraha yaa wuxuu yiri way adag tahay markaas waxaan ku yiri markuu ra'iisul wasaaruhu yiri sida way adag tahay markuu yiri yaa waxaan ku yiri aniga waxa ay taqaanaa dawladdiinu argagixisa caalami ah ay taqaanaa واي sabab ay u dhaxdaa muxuu tahay marka ay u oran kartaa xamar hayimaad كمان ayna noqon inay argixisay taqaan xoos jibriil baa wuxuu yiri ninkan uu inaga shir aqoonsan yahay واي waxaan ku yiri marka inta dib isugu laabataan waxa dhaadaan waa kan shirar caalami ah ka qayb galaya wasaas baasaboorkayga fiiriya inta fiiso ku taal adduunka oo dhan baan maraya war khaladkii naga dhacay raalaha laga ahaado waan ku gafnay ninka iyo qadiyadiisa inta kaliya dhaha aniga waxba hay soo dirin martiqaad ana xamal mari ha واي maxaad igu soo diraysaa maxaa aniga xamal igu martiqaadaysaa maxaa walba adiga xigtaan واي ana iman orda inta dhah raal naga hubiya madaxay gacanta iga saaray raal hubal واي waan dhahaynaa xagga markaan tagna anaga ku soo wici doono anaga xagga kala soo hadlaynay naga wasub biila واي ordan ku واي nimo waxay akaayeen markay meesha taga dhahay warwaan ceebowlay ها waa kan aan wada hadal oo aynu waxyaabahaas ka bixino cudurdaar واي meena ila soo xoriyay واي nimanka marka halkaas ay kala taagana okay maxaad is leedahay marka maxay cudurdaar uga bixin laayihiin in ay yiraahdaan ninkaas waan ku khaldanay ama ururkiisii shaabadan ku dhufanay waan kala noqonay oo khalad baa horta waxa ugu badan ay ka cabsanayaan waxa weeye hadii ay afkooda intaas ka soo baxdo in la yiraahdo taga macnaheedu waxa weeye dadkaaga qof kamida marka aad bixiso cadad u dhiibto macnaheedu waxa weeye dadkaaga oo dhan inaad bixiso dalkaaga taaka kamida hadaad bixisana macnaheedu waxa weeye dalkaaga oo dhan inaad bixiso واي nimankana dadkoodii oo dhan bay bixiyeen hadday marka intay hadlaan ay yiraahdaan arrinta waan ku khaldanay geef bay ahayd raali gelina waan ka bixinayna inay sidaa ku tagaan horta ka yaabay waa nooc oo